السلام عليكم داوديال kusoo dhawaad wararkii ugu dambeeyay oo idin dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in ay duqeyn diyaaradeed ugu arguday dadkii lagu laayay qaraxii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan duqeyntaasi oo laga fuliyay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay gacanta ku hayso madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo sacad u diiday in uu Somaliland u aqoonsado dalka madax banaan Soomaaliya isaga oo ka dhawaajiyay hadalka caraysiyay xukuumadda Somaliland wuxuuna si toos ah u sheegay in aanay Somaliland sinaba uga go'ay karin Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Djibouti oo ka hadlay qaraxii ka dhacay Beledweyne iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo shaaca ka qaaday guulaha ay dawladdu ka gaadhay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka dunida TV oo diyaar garoobay gormaystiran isoo noqda bondaawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida TV oo dhameystiran fadlan daawada si aad mar walba ula socoto wararka iyo xogaha degdega ee dunida TV nagu soo biiro subscribe saaro channelkan lana wadaag asxaabtada ku bilaabo sidoo hordhac warkeena idin kugu sheegay iyadoo dad badan oo rayada lagu xasuuqay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay dawladda Soomaaliya shaacisay in duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Ceelbuur loogu arguday dadkii shacabka ah ee Al-Shabaab ay ku laayeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan howlgal laga fuliyay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa lagu dilay madaxii maaliyadda ee kooxda qawaariijta ee Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Galgaduud waxaana duqeynta oo ka dhacday gudaha degmada Ceelbuur sidoo kale jab lagu gaarsiiyay maleeshiyaad kale oo ka tirsan kooxda howlgalka oo loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ayaa ka dhacay guri ay ku shirayeen saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxaana xubnaha lagu qaarajiyay duqeyntaasi ugu sareeyay hogaamiyihii dhinaca maaliyadda ee kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa Galgaduud warbaahinta dawladda Soomaaliya oo soo xiganaysa gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalig oo kamid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka xoogga dalka ee ku howlan xoreynta Ceelbuur kana soo jeeda magaaladaasi ayaa baahisay xogtan sargaalka ugu sareeya kooxda maaliyadda ee Galgaduud u joogtay Al-Shabaab ee howlgalkan lagu dilay waxa magaciisa lagu soo koobay sahal waxaana la sheegay inay la dhinteen xubno kale oo loo malaynayo inay saraakiil yihiin iyo dagaalyahano ilaalo u ahaa horjoogahan ka tirsan Al-Shabaab duqeynta ka dhacday Ceelbuur ee lagu beegsaday madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka maaliyadda ee Galgaduud ayaa imaanaysa iyadoo oo duqeymo kale ay ka dhaceen koonfurta gobolka Mudug waxaana duqeymahan ay ku aadeen iyadoo Al-Shabaab ay dad rayada ku gumaadeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa sidoo kale gacanta lagu dhigay isla aaga Beledweyne gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo la sheegay inuu u socday dhinaca magaalada Dhuusamareeb kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay iyadoo mas'uuliyadda qaraxyadii ka dhacay Beledweyne waxaana dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyada laga dajiyay magaalada Muqdisho xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo garoonka diyaaradaha aadan cadde ugu tagay dhaawacyadii laga soo qaaday magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay weerarkii ismidaaminta ee kooxdu halka ka geysatay xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir mudane Faysal Caraale oo kamid ah mas'uuliyiinta goobta ka hadlay kana soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa wacad ku maray in loo aargudi doono dhammaan dadkii shacabka ahaa ee lagu dhibaateeyay magaalada Beledweyne wuxuuna sheegay in Al-Shabaab ay dhadhamin doonaan xanuunka gumaadka ay ku hayaan shacabka Faysal Caraale ayaa sidoo kale fariin u diray reer Beledweyne wuxuuna ugu baaqay inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geysteen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Somaliland ayaa wajigabax kala kulantay dalka Uganda kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni sacad u sheegay in aanay Somaliland noqon karin dalka madax banaan Soomaaliya madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa bartiisa X ama Twitter-ka soo dhigay qoraal ka caraysiyay Somaliland oo uu ku diiday fikradda gooni u goosadka ee Hargeysa isaga oo dalbaday wada hadal dhexmara dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland Museveni ayaa qoraalkan daabacay kadib markii uu xarunta madaxtooyada ee dalka Uganda kula kulmay wakiilka ay Somaliland u dirsatay Uganda oo lagu magacaabo Jaamac Muuse Jaamac wuxuu sheegay Museveni in uu kula kulmay aqalka madaxtooyada Uganda ergeyga gaarka ee Somaliland ay u soo dirsatay xarunta madaxtooyada ee Uganda wuxuuna sheegay in uu ergeyga si cad ugu sheegay in Somaliland aanay ka go'i karin Soomaaliya taasina hadii ay ku dhaqaaqdo ay tahay qalad weyn wuxuu yiri Museveni dadku waxay wajahayaan caqabado isku mid ah iyadoo oo loo eegayn jinsiyadda iyo diinta sida darteed waa inay qaataan siyaasadda danta taasi oo ka muhiimsan siyaasadda aqoonsiga ayuu yiri madaxweynaha dalka Uganda madaxweynaha Uganda ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inuu dhexdhexaadiyo Hargeysa iyo Muqdisho ayna u baahan yihiin inay wada shaqeeyaan waxaan ogolahay inaan qaato doorka dhexdhexaadinta nabadda ee labada dhinac suuqa gudaha
ee wadan kaliya kuma filna sidaa darteed Somaliland iyo Soomaaliya waxa looga baahan yahay inay midoobaan oo ay wadajir u ganacsadaan oo ay la ganacsadaan dalalka kale ee Afrika sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Uganda qoraalka Museveni ayaa waxa ka falceliyay dad badan oo reer Somaliland oo madaxweynaha Uganda u qoray jawaab cara leh oo ay kaga xun yihiin hadalka ka soo yeeray Museveni ayaa inta badan siyaasi aan la gamban hadaladiisa wuxuuna hadda ka hor sidoo kale hadal u muuqday bahdil ku yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo u sheegay in aanu isku halayn ciidan shisheeye ee Soomaaliya ay dhisato ciidankeeda si ay u sugto amniga dalkeeda isuguna filnaato hase yeeshee hadalka ugu dambeeyay ee uu madaxweynaha dalka Uganda kaga caraysiyay Somaliland wuxuu u muuqday mid muujinaya sida Uganda ay u aragto gooni isu taaga Somaliland iyo sida ay uga xun tahay in labada dhinac ay si kala fogaadaan iyadoo oo sheegtay dawladda Uganda inay qaadan doonto door dhexdhexaadnimo ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Djibouti ayaa wali kulamo la leh dhigiisa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo kala hadlayo ka qaybgalka iyo doorka dawladda Djibouti ee dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa war uu soo saaray wuxuu kaga hadlay qarxii ka dhacay magaalada Beledweyne isagoo ugu horeyn tacsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku geeriyooday qaraxan madaxweynaha ayaa tilmaamay in falalka argagixisanimo aysan ka hor istaagin shacabka iyo dawladda Soomaaliya dabargoynta qawaariijta ku been abuurtay diinteena suuban ee qaraxyada ku xasuuqa shacabka burburiye masaajida iyo goobaha lagu barto Qur'aanka Kariimka madaxweynaha ayaa u rajeeyay muwaadiniinta dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxan in eebe u boogadhayo waxa uu xusay in shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu ay isku duubni uga guuleysan doonaan cadawga arxan laawayaasha maantana la joogo xilligii loo midoobi lahaa in laga xoreeyo guud ahaan dalka Soomaaliya kooxda al-shabaab qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ayaa loo adeegsaday baabuur xamuul oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa wuxuuna ka dhacay xaafada Nuur Xawaad gaar ahaan nawaaxiga warshada cabitaanka Horseed halkaasi oo lagu dilay dad badan oo rayada inta la xaqiijiyay qaraxan waxa ku dhintay in ka badan 10 qof halka ay 20 kalena ku dhaawacmeen dhinaciisa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan Mareykanka ayaa ka hadlay guulaha ay dawladdu ka gaadhay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo deegaanada laga xoreeyay kooxdan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shaaca ka qaaday in dawladda Soomaaliya ay xoreysay 45% dhulkii gacanta ugu jiray maleeshiyaadka al-shabaab taasi oo ka dhigan inay harsan tahay 55% dhulka ay al-shabaab xukumeen Xamse ayaa hadalkan ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York oo uu khudbad ka jeediyay Xamse Cabdi Barre wuxuu sheegay in dalkiisu uu gacan bira kula tacaalayo xagjirnimada isagoo adeegsanaya olole guul leh oo ka kooban tallaabooyin military dhaqaale iyo fikir wuxuu carabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay maanta leedahay nidaamyada maamul ee lagama maarmaanka oo ku adag xakamaynta haysashada adeegsiga iyo sidoo kale kaydinta hubka Soomaaliya ayaa bilowday wajiga koowaad ee duulaanka military ee ka dhanka al-shabaab bishii Agoosto ee sanadkii hore wajiga labaad ayaa lagu dhawaaqay bishii hore iyadoo ciidamada militarigu ay gacan ka helayaan maleeshiya beeleedyo ku sugan bartamaha Soomaaliya haddii uu sax yahay hadalka ra'iisul wasaare Xamse in dawladdu ay xoreysay 45% dhulkii ay haysatay al-shabaab waxay ka dhigan tahay in wali dagaalku aanu dhaweyn ayna adkaan doonto muddada ay dawladdu qabsatay inay ku soo afjarto howlgalka waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Dunida TV